iyo lasaanad waan joogaa alxamdulilah waa mikrox badan Europa heshay habeenkii xalay Europa dhacay alxamdulilah way fiican tahay adigoo sidaad arki kartaan waa meel iminka gudaha waa nabad laakiin dibadda dagaalka wuu taagan ما شاء الله لسعنا هذا كل دجال بالبكرة أنا محد كأن سنة مركز الله سبحانه markii hore maxaan ka aaminsanaa anigu dad fara badan oo reer Lascaanood waana la saxiibnay waana saxana berigii hore 20 sanadood ka hor baan joogi jiray kabacdi waxaan aaminsanaa in wixii iminka Lascaanood gudaheeda dhacayso inay tahay halgan bullshit oo kale adigoo bulshada weynaha way ka aysan yihiin bulshada way ka aysan tahay way diidan yihiin in loo haysto xoog kabacdi way diidan yihiin fikrada in loo kala go'ayo Soomaaliya iyo Somaliland beriga horena sidaas bay ahayd markii ugu horeysay aan imaan jiray Lascaanood 2002 bishii August waan arki jiray calanka buluug taagan magaalada oo gidaar ku sawiran maantana sidaas baad u arkaysaa maanta waxaad arkaysaa calanka buluug iyo calanka Khartoum State laakiin labadaba way israacaan Soomaaliya way jecel yihiin berigi horena way jeclaan jireen iyo waad arki jirtay iyo maanta kacanka u dhacay sidaas way hadda maxaad ka aragtay Lascaanood kulli dagaalka lagu jiro waabtini maxaad qabatay maxaad adigu markii aan galay magaalada saddex habeen ka hor waan adigoon arkay guri fara badan oo burbursan adigu waxaanu taagnay xafado kala duwan la yiraahdo mid waxaanu taagnay dhinaca bariga hotel Hamti agteeda adigu xafad aad u burbursan bay tahay waxaan arkay gurigii madfax ku dhacday 6 bishii February hooyo iyo 7 caruur bay ku dhinteen waxaan arkay guriyo iyo tusaale ahaan masaajidyo dhakhtarka weyn dhakhtarka maanahayo waan arkay oo bullets ku jiraan gidaarka iyo jingada marfayda adigoo dhakhtarka weyn waan arkay oo xogaa qaybta ku burbursan beesha caalamka international community-ga baa la wadaagaysaa baanka Soomaaliya iminka waan joogaa magaalada inaan xog ururinayo wixii jirta inaan markhaati u noqonayo inaan dadka waaweyn oo mas'uula oo halganka ku jiraan inaan wareysanayo xog ururinayo warbixin sax ah qorayo iyo soo saarayo in adduunka garan karo wixii jirta iminka hadda Lascaanood waa nabad gudaha waa nabad laakiin haga buuraha adiga waqooyiga dhinaca Dooyo Xonsho dhinaca Maraaga dhinaca Hargaaga dagaal ku jira adiga ciidanka Somaliland uu sugan yahay adiga laba habeen ka hor waan joogay markii ay bilaabmeen ay xabadeynayaan dhinaca bariga hooga wareer yar bay u qaateen dhinaca bariga dhinaca Hamti iyo dhinaca Dooyo Xonsho dhinaca waqooyi galbeed waan joogay marxaati baan wahaa ma sha Allah goorma Soomaaliga baratay berigi hore Soomaaliga waan bilaabmeen baranayo waa sidaas buug baan qoray buugaag macallin jaamacad baan ahay adiga magacaygu waa Marcus Hune adiga dalashadayda waa Jarmal waan ku taxanahay macallin jaamacadeed taxasuustayda waa ilmiga bulshada iyo adigu 20 sanadood ka hor baan imi adigu markii aan PhD gaaga diyaariyay baritaan weyn deer baan ku jiray sanadii bar ama 2 sanadood meelahaas baan u wareegi jiray waqooyiga Soomaaliya ilaa Boorama ilaa Gakayo talax inta badan baan joogay wasiilaas talaxna waan joogay waan soo boqday waan ka helay waa meel taariikh leh silsiladii hore baan arki jiray darwishtii silsiladooda baan arki jiray waa meel taariikh leh waan ka helay wax badan ma qora adigoo articles fara badan iyo laba buugaag baan qoray iyo dhowr buugaag waan soo saaray oo aan edit gareeyay